28 bishan aynu ku jirno ayay ahayd markii roobab daadu wata ay qaadeen guud ahaan magaalada Tukub isla markaana uu halkaasi ku dilay 3 caruur hooyadeedna ku dhaawacay xoolo badan oo qaaday dad badan ay ku guryo iyo raashinba beeleen Tukub oo soo fatahay awgeed ayaa waxa dadkaasi oo ay ka muuqato diifti iyo waliba dayac kale u guntaday sidii ay wixii taakula ah u gaarsiin lahaayeen haday noqoto raashin iyo maacuun dadweynaha reer Caynaba maamulka gobolka Saraar maamulka dowladda hoose ee degmada Caynaba mas'uuliyiinta ciidamada booliiska ururka haweenweynaha qaranka ee naaw hay'adda DRC iyo xubno kale oo isxilqaamay dadkaasi ayaa waxa la gaarsiiyay lacag iyo weel kadib markii ay noqoto in raashinkii waxna qoyo inta kalena daadku la tago haday raashin heli lahaayeen aanay jirin weel ay wax ku karsadaan ugu horeynba waxa deeqdaasi la wareegay gudoomiyaha magaalada Tukub oo isagu tilmaamay maamulka gobolka Saraar iyo kan degmada Caynaba sameeyeen isxilqaan isla markaana ugu baaqay qurbajooga gobolka iyo ganacsatada kaleba inay dadkan si degdeg ugu soo gurmadaan wixii taakula ee ay heli karaan maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa isna goobta ka hadlay wuxuuna ugu baaqay cid kasta oo damqanaysa in looga fadhiyo waxtar degdeg ah xataa haday noqoto dadka xoololeyda ee ku dhaqan deegaanada Tukub waxa la Soomaalidu waxay ku maamaada hooyaday waxay haysana way haysa waxayna hayna way haaban doonto wixii aanu soo helayna maanta waa naga intee Tukub naga gudooma wixii dambana waanu baadoon tagaynaa oon ka war haynaa in ciilasha udmeen in guryihii dumeen in raashinkii idinka tagay oo daad qaatay in dadkii uu barinaga daraad inaga mid ahaa uu la tagay dadka waa ka war haynaa deewaanu idina waxa dhinaceeno isku siiyumba xanuunka inoo wada hayaan leeyahay dadka reer miyiga ee ceelkan u soo aroora iyana waxaan ka codsanayaa ama buurta degan gurmadku magaalada kama yimaado waaradu kuma waxba taraydin war waxaan leeyahay ballinaya neef sakada ku beega oo wuxuun ku beega war wax keen dadka soo gurmaday gudoomiyaha ururka naaw ee gobolka Saraar oo kamid ahay dadka goobta tagay ayaa dhankooda gurmadka ka qayb galay alaab isugu jirta qadiifado weel iyo bustayaal loogu tala galay dadka kuhu iyo hoyba waayay masiibadan roobabka ugu baaqayna marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo marwadiisa waxaan codsanayaa oo aad iyo aad u maxaday ugu baahanahay in maxaad marwada waxaan ka codsanayaa dadka tabaalaysan haweenka tabaalaysan ee caruurahoodii waayay iyaguna liita ee maxaad tabalada aad u culus haysato ee maxaad ay dhaawac culus maxaad way daldalooshameen daad baa qaatay feeraha ayay ka daloolaan way jajabeen markasta way burbursan tahay maxaad iyo ku dhintay waxba ma dhaamaan marka waxaan ugu baahanahay in nalala eego oo maxaad dhanka kale Maxamed Xaaji Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka komishanka gobolka Sool ayaa aabihii dhalay 3 caruur ee daad ku qaaday siiyay $100 oo tusaale noqon karta in lagu daydo isla markaana wuxuu dadka kale ee muslimiinta ah ka codsaday inay ku daydaan oo nimba wuxuu helo karaankiisa keeno ugu dambeyntiina barsabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa farta ku fiiqay inay wixii karaankooda ah ee ay heli karayeen hadda soo gaarsiiyeen isla markaan ay u howlgali doonaan ka xukuumad ahaan iyo ka gobol ahaan la waxa weeye wixii aanu heli karaynay gurmada degdeg ah itaalkaygu intaas u noqday la arkayo ilaa 3 casho meelaha Soombay ayay si waabin kartaa marka waxaanu mar labaad ku celinaynaa awoodeedu waa inta wixii kale farahayaga way ka baxsan yihiin ee wax degdeg ah la soo gaaro intaas marka ay iskaga meel gaaraan ilaa 3 casho waxaanu rajaynaynaa sidaan ognahay xukuumaduna hawlgalay ku jirta in loogu dhaqsado wixii awood ee loo helo hay'adaha laftooduna ay soo gurmadaan qurbajooga ay gurmadaan waa dadkoodii oo dhibaataysan waxba ay sii hayn waqtiga sii luma dhibaatoodu sii kordhinaya ka intaasaan iskaga koobayaa assalaamu alaykum si kastaba ha ahaatee dadkani ku soo fatay Tukub ayaa awday dhammaanba ceelashii ay dadka deegaankani ka cabi jireen waxaana arintaasi ka hadlay isuduwaha macdanta iyo biyaha gobolka Saraar kaasi oo wasaaradda xukuumadda iyo hay'adaha ugu baaqay inay degdeg wax uga qabtaan ceelashan awdmay oo ay hay'adda DRC ballan qaaday inay wax ka qaban doonto sida ugu dhaqsaha badan ilaa hadda shaqeynaya ma jiro waxa hadda nala socoto hay'adda DRC oo asasbanka nagala qayb qaatay oo aan rajaynayo inay kulay wax ka qayb qaadan doonto runtii wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo hay'adaha ku hawlan biyaha waxaan ugu baaqaynaa in si degdeg ah loola soo gaaro gurmad oo ceelashan wax laga qabto Maxamed Aadan Dirir TV-ga caalamiga ee Somali Channel magaalada Tukub